Qaraxyo xooggan ayaa caawa laga maqlay xarunta Xalane ee agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho sida ay sheegayaan dadka deegaanku. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inay maqleen ugu yaraan 4 qarax oo ay u malaynayaan inay ahaayeen hoobiyeyaal lagu tuuray xarunta Xalane. Warka ka soo baxay dagaalamayaasha Al-shabaab oo baahisay warbaahinta taageerta ayaa lagu sheegay in madaafiic ay ku tuureen xarunta Xalane. Madaafiicda lagu tuuray xarunta Xalane ayaa Al-shabaab waxa ay sheegeen in loo adeegsaday qoriga loo yaqaano hoobiyaha, inkastoo aan lagu sheegin warka halka laga soo riday hoobiyeyaashaasi. Mujaahidiinta ayaa ilaa iyo 5 madfac la helay xarunta Xalane oo ay degan yihiin ciidamada duulaanka ku soo qaaday dalka Soomaaliya, waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaadhay ayaa lagu yidhi warka qoraalka ee ka soo baxay Al-shabaab. Ma jiraan warar laga heli karo gudaha Xalane oo la xiriira khasaaraha ka dhashay madaafiicda. Al-shabaab ayaa dhowr mar weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal ku qaaday xarunta Xalane oo ay ku shaqeeyaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka, isla markaasina ay ammaankeeda sugaan ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM oo si weyn u ilaaliya xaruntaasi.